السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قيامة شرف صلى الله عليه وبعد إنك جوكتان waxaa idin rajeynaya inaad nabad qabtaan. Waxaan soo qaadanayaa qaybtii labaad ee barashada Ingiriiska oo aad u muhiim ah. Jumlo maalin walba aan isticmaalna ay tahay. Waxaan ku bilaabaa sidaan soo socoto. Is this yours? Is this yours? Kan adi miyaa iska leh? Yes, it is mine. Yes, it is mine. Aniga ayaa iska leh. Dhinaca kale waxaad oran kartaa it is mine. Anaa iska leh. Who is below to? Who is belongs to? Who is belongs to? Yaa iska leh. It belongs to Ali. Ali baa iska leh. Dhinaca kale waxaad dhihi kartaa it belongs to my sister. It belongs to my sister. Walaashii ayaa iska leh. Gabadha ila dhalatay walaashii baa iska leh baad oran kartaa. Ama waxaad dhihi kartaa it is mine. It is mine. Anaa iska lehba. Who is there? Halkaas yaa joogo. Who is there? Halkaas yaa joogo. Ali is there. Ali is there. Ali ayaa halkaasi joogo. I am here. I am here. Halkan anaa joogo. My mother is there. My mother is there. Hooyadeydii baa halkaasi joogto. Who is the left over there? Halkaasi yaa ka tegay. Who is left over there? Halkaasi yaa ka tegay. Me. Aniga. Who is walking there? Who is walking there? Halkaasi yaa socdo. Halkaasi yaa socdo. My son is walking there. My son is walking there. Wiilkayga ayaa halkaasi socdo. Haddaba maadaama jumladan aad ay muhiim u tahay qaybteeda labaadna ay tahay aan ku celiya mar kale si aan wax badan ugu faa'iidno. Is this yours? Is this yours? Kan yaa iska leh. Is this yours? Is this yours? Is this yours? Is this yours? Kani adiga miyaa iska leh? Yes, it is mine. Yes, it is mine. Aniga ayaa iska leh. It is mine. It is mine. Anaa iska leh. Yes, it is mine iyo it is mine waxay ku kala duwan yihiin. Yes, it is mine. Haa, anaa iska leh. Haa. Marna waxaad leedahay it is mine. Anaa iska leh. Oo kaliya. Haadaa meesha ka maqan. Who is belongs to? Who is belongs to? Kani waxa weeyaan waxbaad arkaysaa yaa iska leh baad leedahay. Qofka iska leh garan maysid. Marka aad garanayso qofka iska lehna waxaad leedahay is this yours? Kani adi ma iska leh. Kan adi miyaa iska leh. Ilaa waxaad ku tuhumaysaa qofkani inuu leeyahay ama aad u badinaysaa. Is this yours? Kan adi miyaa iska leh. Laakiin haddaadan garanaynin qofka iska leh waxaad leedahay who is belongs to, who is
belongs to yaa iskale ilan garan maysa cidda iskale. It belongs to Ali. It belongs to Ali. Ali ayaa iskale. It belongs to my sister. It belongs to my sister. It belongs to my sister. waxaa iskale gabadha ila dhalatay ee walaashayda. It is mine. It is mine. It is mine. anaaba iskale hebo. Who is there? Who is there? Who is there? halkaas yaa joogo. qof baad halkaas ka aragta meel fog. halkaas yaa joogo baad leedahay marka. Ali is there. Ali is there. Ali is there. Ali is there. Ali ayaa halkaasi joogo. I am here. I am here. ani ayaa joogo. qofkii ayaa ku maqlay anaa joogo uu yiri. My mother is there. My mother is there. hooyadeydii ayaa halkaasi joogto. Who is left over there? Who is left over there? halkaasi. Who is left over there? Who is left over there? yaa halkaasi ka tegay. Who is left over there? halkaasi yaa ka tegay. Who is left over there? halkaasi yaa ka tegay. me anaa ka tegay. Who is walking there? 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 halkaasi yaa socdo. My son is walking there. 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 wiilkayga ayaa halkaasi socdo. waa muhiim in aanu ka faa'iidaysano oon akhrino maalin walba luqadda ingiriiska, gaar ahaan kelmadaha jumlada ah oo tan ay ka mid tahay oo qaybta labaad ah iyo qaybtii koowaad oo aad ka arki karto meesha markaad sii gasho. waa inaan ku dadaalnaa ilaan ingiriisku waa jumlo un. jumladaas haddaan ku celcelino wax badan baa inoo hagaaga. luqaddana waanu fahmayna insha allah. aan aqrino, aan qorno, aan ku hadalno oo aan dhageysano. haddii allah awood u leeyahay luqadda waa intaas un.